madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa qariib baa la yiri in magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ay qarka u saaran tahay in al-shabaab ay qabsadaan maamulkiisa uu sana awoodin in uu ka difaaco. hadalkan Qoorqoor waxa uu ka sheegay baa la yiri kulan ay la yeesheen odayaasha dhaqanka magaalada Dhuusamareeb. qaar ka mid ah odayaasha la kulma Qoorqoor ayaa waxa ay sheegeen in markii hore madaxweynaha ay ugu tageen dhexdhexaadinta khilaafka iyaga dhexdooda oo salka ku haya qaabka loo qaybsanayo xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Dhuusamareeb. si gaar ah odayaasha la kulma Qoorqoor ayaa ka soo jeeda beesha Cayr waxaana ay isku dayeen in kulankaas ay uga faa'iideystaan ka hadalka ammaanka ee faraha ka sii baxaya ee deegaanada galmudug gaar ahaan Dhuusamareeb oo habeen kasta deegaanada ku dhow ay al-shabaab yimaadaan. madaxweyne Qoorqoor ayaa odayaasha u sheegay in uu la socdo in gobolka Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug ay soo buuxdhaafiyeen al-shabaab balse galmudug aysan haysan ciidan lagu tashan karo oo iska difaaci kara xarakada al-shabaab ee weerarka ku ah deegaanada maamulkiisa. amniga magaaladan lagu haysto oo cid kasta u soo hilowday waxa laga soo maray dhib badan baa laga soo maray. dadkan dhagahoodu dhawaq xun inuu ku dhaco ma rabno, dhawaq wanaagsan inuu ku dhacaan rabnaa, inay nabadgelyada ku seexdaan aan rabnaa, inay ku naaloodaan rabnaa, inay midnimadooda ilaashadaan aan rabnaa. meel kasta oo galmudug joogtana waa isu raadinaynaa, sidii qasadkeenni marna ka daalimayna waa midaynaynaa. sidaas ayaadna mas'uuliyadda nuugu dhiibateen, waana ka soo baxaynaa ilaahay idanki. aad iyo aadaan idinkugu mahad celinayaa, jazaakumullahu khayra aljazaa. aadaan idinkugu mahad celinayaa bulshadiina qaybaha kala gadisan inta idin soo gaari weydana waa u garaabaynaa. waxaan leenahay ajarkiinni waa hesheen, kulankii waa ka qayb gasheen, muraadkiinni waa gaarteen ayaan leenahay rijaalan wa nisaa'an. inta idinkala soo qaybgeli weyday oo majliskan sharaf